shirkadda isgaarsiinta ee soo gasho ayaa daafurtay barnaamijka soo gasho oo guulayso oo ah mid shirkaddu abaalmarino ku bixinayso mas'uuliyiinta ugu sarreysa shirkadda ayaa ka warantay abaalmarinta ay bixinayso oo kala ah baabuur, tabletyo, moobilo iyo mayfayga shirkadda ee internetka. Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Cabdilaahi Rakoob, madaxa xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda Somcable ayaa ka waramay barnaamijkan soo gasho oo guulayso iyo muddada 3 bilood uu soconayo. Dhammaan macaamiishayda waxa uu bilaabmayaa 1 Juulaay, waxa uu dhammaan doonaa oo soo idlaan doonaa 3 Sebtembar. abaalmarimaha aan ugu talagalnay macaamiishaydu waa gaadhi, tablets, moobilo iyo sidoo kale 4G MiFis. shirkadda waxay u taagan tahay raaligelinta macaamiisheeda. in badan waxaanu ka qayb qaadanay in aanu bulshada wax u celino, hadday tahay caafimaadka, waxbarashada, sportiska iyo adeegyada aasaasiga ah. maanta waxaanu daahfuraynaa barnaamijka abaalmarinta ee soo gasho oo guulayso. waa barnaamij aan ugu talagalnay in aanu ku tartansiino macaamiishayda. madaxa ganacsiga shirkadda Maxamed Maxamuud Dalxa ayaa isna ka waramay adeegyada shirkaddu bixiso iyo agabka lagu bixinayo barnaamijkani ee bulshada loogu talagalay muddada uu soconayo inay ku guuleystaan baabuurkan iyo abaalmarinada kala duwan. barnaamijkan amba hadiyadan qaaliga waxa ka faa'iideysanaya dhammaan macaamiisha shirkadda ee haysta adeegyada kala duwan, hadduu yahay fiberka guryaha, hadduu yahay fiberka ganacsiga, hadduu yahay anteenka guryaha dushiisa saaran, hadduu yahay macaamiisha haysata adeega 4G-ga ama kan gacanta lagu qaato. runtii dhammaantood way u furan tahay, waanay ka faa'iideysanayaan, waana ugu talagalay hadduu Ilaahay yiraahdo. waxa kale oo aan xasuusinayaa macaamiishii runtii aan muddada dheer adeega isticmaalin in iyaguna maanta ay fursadan ay ka faa'iideysan karaan oo ay la mid yihiin iyaguna si la mid ah uga faa'iideysan karaan macaamiisha isticmaalaysay iyo kuwa cusub hadda nagu soo biiraya dhammaantoodba. Sami Omega, madaxa suuqgeynta ee shirkadda iyo Mukhtaar Nuur ayaa iyaguna dhankooga ka waramay barnaamijkani ay ugu talagaleen macaamiisha kala duwan ee shirkadda in ay ku guuleystaan baabuurta iyo agabka kala duwan, waxaana sheegeen inaanu noqon doonin kii ugu dambeeyay balse ay wadi doonaan barnaamijyada caynkan oo kala ah ee macaamiishooda wax ugu soo celinayaan.